السلام عليكم ورحمة الله. waxaan ahay maxamed cumar sheekh kana mid ahaa jiray wasaaradii warfaafinta iyo hanuunintii dadweynaha ee dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya. waxaan halkan aan shaqada waqtigaasi waxaan galay 1976 waxaana shaqada marna la wada qoray isla maalin la wada qoray wariyihii hore ee BBC-da Hargeysa u joogay Axmed Said Cige ayaa maalinta la wada qoray. waxa la igu bilaabay shaqada aan ahaa wakaalada wararka ee Soona qaybta monitoring-ka la ilaa ayaan ka bilaabay shaqada 77kii waxa la ii bedelay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbaharey oo aan muddo 2 sano iyo badh joogay. 80kii waxaan tagay waxbarashaan ka helay dalka Jarmalka dawladda Soomaaliya halkaas oo aan muddo sanada ku soo qaatay dabadeed 80kii ayaan 82kii dalka dib ugu soo laabtay. waxaan markaa noqday madaxa wararka dibadda ee wakaalada wararka Soomaaliyeed oo markaa agaasimo ka ahaa nin loo oran jiray ama la ilaa ma garan kara meel ku dambeeyay Saciid Maxamuud Xaaji oo loo yaqaan Saciid Soona. wuxuu ka soo jeeday magaalada Gaalkacyo beesha Sacad buu ahaa. waxa kale ku xigeen ahaa Yunus Ali Nuur oo wariyashii ugu caansanaa BBC-da ahaa Allah u naxariistay bari dhaweyd sanadkii hore dhintay. waxa wasaaradda markaasi qaybtaasi ayaan ka shaqeynay Galbaharey markaa 82kii aan wararka qaybta wararka dibadda aan noqday. 84kii dalka hadana dib uga baxay anigoo tagay wadamada dibadda ama Carabta dib ugu laabtay halkaas oo tagay wadanka Ciraaq ayaa joogay. muddo sanad 88kii ayaa ku soo noqday dalka haddana isagoo dalku aad u qasan markaa oo xaaladiisu xun tahay dagaal sokeeyay ka bilaabmeen. waxaan ku biiray markaasi halkii mar labaad ayaa wasaaradda warfaafinta galay. waxaan noqday wasiir waxaan ka mid noqday shaqaalii wasaaradda warfaafinta shaqaalii waaxda idaacadda oo markaa agaasimo ka ahaa nin la oran jiray Allah u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Teera uu ka ahaa jiray agaasimo ka ahaa. waxaan ahaa faal qore iyo barnaamij ku saabsan dhinaca warshadaha ama horumarinta ayaan xitaa sii deyn jiray oo idaacadda ka siin jiray ilaa laga gaarayay 91. waxaan doonayaa halkan inaad idinka cadeeyo wixii aan ka ogaa nin baryahan dambe baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Taakeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada Farxaasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada US soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ba qabsaday wasaaradda warfaafinta u badnaa goladan gobolada dhexe ka yimi ama beesha habargidir u badnaa wasaaradda isgaarsiinta qaar ba qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale. sidaas ayaa markii aan meesha joognay saan u joognay meeshina lagu dul qabsaday ciidankii dawladana uga baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halka ka dhacay waxyaabo aad u fara badan oo ku saabsan ninkaasi. ninkan waxa uu ka mid ahaa Taakeeye la yiraahdo ciidamo nin dhalinyaro aad u daayar buu ahaa. wuxuu ka tirsanaa ciidanka ID ama USC-da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dawladda siyaad bareeyay dibadda kamay soo wareegi jirin oo may soo gali jirin stuudiyaasha may soo gali jirin. ninkan qoriga intuu qaato stuudiyaha la soo galay markaa adoo warkii akhriya ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita. Taakeeye marka waxaan ka shakiyay haddaan iraahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen haddaan khaldamo oo aan iraahdo USC oo siyaad barra ama USC oo General ID aan kala garan waayo markaas soo kay khaldamo bilo kugu dhifay darteed baan halka uga shakisanaa. Taakeeye waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iska baxay ayuu wariyaashii iska raacay soo qorisita taw kaga duwan horta askarta taas ay ahayd. waxa wasaaradda warfaafinta markaa ila joogo reer Boorama ah oo la oran jiray Allah u naxariistay Xasan Aya Boqorre oo adeerkay ahaa oo wararka General ID ama USC-da u turjumi jiray Ingiriisiga soo saari jiray bulletin la oran jiray Soora ay lahayd oo wararka Ingiriisiga lagu qoro Xasan Aya Boqorre la oran jiray waxa
waxa kale oo ila joogay nin Allah u naxariistay barkad cawaal leeyahay isaguna reer Boorama ahaa oo markii dambe dhowriyood 2010 meelaha ku dhintay weerar lagu qaaday mid kamid ah idaacadihii Muqdisho FM ta ahaa lagu qaaday marka sheekada ninkan waxaan ku soo urdu wajiga ahaa waan garanayay waxa uu wariyaashan meesha lagu laayay dhamaantoodna nin kaliya mooyaan Abuukar leeyahay mooyaan oo wada aqaan hadday tahay seedanteena ninka leeyahay ka hadlayay isla arrinkan waan dhamaantood waa Abuukar kaas baan aad si garanayn maalmaha bishii markii ciidankii USD meesha ay soo galeen ninkan oo meesha wasiirkii la keenay gacmo dheere ee warfaafinta uu horeeyay dawladda USD ninkan uu yimid muddo aan la shaqeynay dhaqdhaqaaqiisii aan arkay wuxuu maalin weydiiyay qolada hoos buu weydiiyay waxaan ku yiri saaq baana waa nin walba weydiinay sababta saaq weeyna waxa ay ahayd waxa jiray dareen ama ay ka tirsanayeen beelaha USD in urur la magac mucaarad ahaa oo loo oran jiray SDA oo hogaamin jiray loo naxariistay jaamac Rabiila Good idaacada BBC ay sheegtay inay dagaal ay ugu heelinayaan beelaha daarood ama dawladda siyaad barre ugu heelinayaan ay gadbuusigu la galeen oo ay u heelinayeen sida darteeda USD ay dagaal la galeen oo USD ka hor yimaadeen dagaalna Jowhar iyo beledweyne dhexdeeda ay kula galeen godob bay noqotay taasi dad badan oo samaroon oo ka soo safrayay Muqdisho Jowhar ila beledweyne aad loogu dhibay arrinkaasi godobna ay u qaateen si xunna loogu bahdilay ama loogu qaarna ay ku dhinteen sidaas ay u kaliftay marka wiiga tagay ninkaas wiiga tagay taakaya leeyahay haddana magaal meeshana ma joogin wax isaaq leeyahay oo wariyaasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay koonfurta marka laga reebo aniga odaygaas ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxay yeelan iska tagnay meesha xasan ayo adeero inaga meesha waxyaalo badan baa soo kordhay inaga mari wuxuu dhaano halkaan ku dhimanayay Boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2010 ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxaad mooyaan halkaas oo ciidamadii US iyo dawladda US waqtiga jirtay ay u sameeyeen aas qaran waana odayga kaliyaatee xabaashiisu ay ku taala ilaa imika wasaaradda warfaafinta dhexdeeda laga arki karo reer Boorama haddaba markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sida wax socdaan markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo wariyaashu daba soconaya midba meel buu la galaya midba meel buu stuudiyo kula galaya si adoo warkii akhriya markaasaan gartay in meeshan ninkan wax kale meesha ay ka soo socdaan sidii ayaan maalinta qoladeeda weydiiyay ayaan shiki badan i galay sidii baan 2019 bishii labaad dhamaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019 ayaa kaga soo tagay sidaas ku tagay kaga imi oo u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan u laayay waxa ka horeeyay nin isaguna dhintay oo loo oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhulbahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaas qaabilsanaa kaydka idaacada ayuu qaabilsanaa MMJ baa loo oranayay uu ka horeeyay shanta wariye meesha ku dhibatay uu ka horeeyay ninkii ugu horeeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacada ka soo baxay intaan meesha ceelgaabta leeyahay intuu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda warfaafinta iyo ceelgaabta isku jiraan oo la garanaya ayuu halka ku dhintay oo halkaas lagu dilay marka inta badan ninkaas wax meesha ku dhintay ninkaas uu horeeyay inta kale way ku xigeen sida ayaan kan uga shakiyay inuu nin dila ahaa oo nin gabalin ahaa oo nin qorisitay qori uu la wareegayo oo ahaa oo aadna u daayara dadkan yaraanta qoriga ku qaatay oo ahaa dawladda US maamulkii US ahaa marka ninkaas nin wax dili karo ahaa cabsi baa iga gashay sida ayaanan u aaminsanahay inuu ninkaas intaas wariye dili karo